على عبد الرحمن هذان qodobada wararkeena habeenimo ugu waaweyn waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa halkaasi kula kulmay boqorka wadankaasi boqor Salmaan bin Abdul Aziz ayagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo quseeya labada wadan كوسيما مدحينها دالك أهانا فيانكا قولها شعبيقا إيه رجل وزارة كحيغانكا مسؤولين كلا يا كقيب قالي مناسبة لغو حسيي معلنتا قرن مدى ودنكا تشاينا ولو قبتي مقالة المقدشو مقالة قروي حرونتا دولة قبلات كابونتلان ayaa lagu soo gabagabeeyay shir ku saabsan midaynta canshuuraha dalka kaasoo ay ka qayb galeen wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawlad goboleedyada dalka wararka caalamiga waxa uu waaweyn ra'iisul wasaarihii hore wadanka Thailand England Shinawatra ayaa maxkamadda sare wadankaasi waxa ay ku xukuntay muddo 5 sano kadib markii lagu helay loonsasho hantida dawladda xilligii ay ra'iisul wasaaraha ka ahayd wadankaasi Thailand daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena habeenimo ugu waaweynaa haatan ku soo dhawaada warkii oo inta ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo boqosho ku jooga wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulan la yeeshay boqorka wadankaasi boqor Salmaan bin Abdul Aziz waxaana labada mas'uul ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo quseeya labada wadan sida warbixintana wadanka Sacuudi Carabiya inoogu soo diray wariyaheena Alab inoogu soo warama wadankaasi Sacuudi Carabiya Cali Cilmi Jaamac Ali Kuus madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii uu hogaaminay oo haatan boqosho rasmi ah ku jooga dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta waxaa boqorka dalka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Abdul Aziz uu ku qaabilay qasrigiisa ee ku yaala magaalada Jidda haddaba kulankaasi uu ku bilowday kuna dhammaaday jawi aad u wanaagsan waxa ay madaxweynaha iyo boqorkaba iskula soo qaadeen sidii loo sii horumarin lahaa cilaaqaadka taariikhiga ah iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya labada dal iyo labada shacbi ee Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya haddaba dhinaca Soomaaliya waxaa kulankaasi uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad mas-uuliyiin ka tirsan dowladda danjiraha dowladda Soomaaliya وفضل ذلك بقرطوية السعودية عربية مدن الدائر محمود قلي مسؤولين كترسل سفارة الصومالية يقوصلين ذلك بقرطوية السعودية عربية يضولين على السعودية عربية وقولا كاسي قوقوقا مسؤولين سريع وكترسل ذلك السعودية عربية هذا قلب كور با انت كان الدول ذلك اياسي وين لو قدر يميات وقشد مدحوينها الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو وكجوجو دلك سعودي عربية intaasi ay dheertahay iyadoo Soomaalida ku nool dalka Sacuudi Carabiya ay si xoog leh u hadlayaan booqashada madaxweynaha oo warkaan in Soomaaliya ay haleysay wadadii horumarka tan intii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxtinimada dalka Soomaaliya Ali Jaamac Cilmi ala kutubaha qaranka Soomaaliya Sacuudi Carabiya كوسيما مدحينها دالك أهانا فيانكا قولها شعبكا رئيسل وزارة كحيغانكا iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta qaranimada wadanka China oo lagu qabtay xarunta safaaradda China ee magaalada Tan Muqdisho xuska munaasabadda 68aad ee aasaaska jamhuuriyadda dalka China ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda Shiinaha ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho oo ku dhex taala xayndaabka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho munaasabada ayaa waxa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha ahna afayeenka golaha shacabka mudane Maxamed Cusmaan Jawaari kusimaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Soomaaliya sida golaha wasiirada iyo xildhibaano labada aqal ka tirsan saraakiisha ciidamada qalabka sida qaar kamid ah iyo sidoo kale danjiriyaasha beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho ugu horeyntii munaasabada waxa ka hadlay safiirka Shiinaha ee Soomaaliya Mr. Chin Chin waxaana uu ku dheeraaday xiriirka China iyo qaaradda Afrika uu sheegay in wax badan uu aad u xoogaysay sanadahan dambe isla markaana ay sii kordhiyeen dhaqaalaha qaaradda Afrika kordhintiisana 20% ay ku bixiyeen dawladda Shiinaha
waxa uu safiirka Shiinaha uu sheegay in Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee xiriir diblomaasi la sameeyay China oo sanadkii 1960 markii Soomaaliya xorriyadda qaadatay waxa uu sheegay in China ay mashaariic fara badan Soomaaliya ka fulisay ka hor burburkii dawladda ee 1991 waxa uu sheegay in sanadihii u dambeeyay abaarihii dhibaatooyinka dalka ka dhacay wax badan ay ku bixiyeen oo lacag 60 milyan kor u dhaafaysa ay ku bixiyeen abaartii la soo dhaafay Soomaaliya ka dhacday waxa uu sheegay in sidoo kale ay doonayaan inay kordhiyaan xiriirka iskaashi iyo siyaasadeed iyo bulsho ahaan kala dhaxeeya Soomaaliya waxa uu si gaar ah u soo qaatay in arday iyo ganacsato iyo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay dalka China ay tagayaan sanad kasta taasina sidoo kale uu sheegay inay kordhinayaan deeqaha waxbarasho ee dawladda Shiinaha ay siiso dadka Soomaaliyeed. In recent years, Chinese government has provided nearly dozens of government scholarship to Somalia. So far, more than 1,400 Somali students have already studied in China. Kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaar ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuled Khadar ayaa munaasabada ka hadlay waxaana ugu horeyn hambalyo u diray shacabka iyo dawladda China oo sheegay in ay ugu hambaleynayaan sanad guurada 68aad ee aasaaska jamhuuriyadda China. Ra'iisul wasaar ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ahayd dalkii ku taageeray codkiisa in China ay ka mid noqoto shanta wadan ee joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Somalia was a leading voice in Africa, supporting the Chinese government to become a permanent member of the UN Security Council. Afayeenka golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa munaasabada ka hadlay waxa uu wareyntii sidoo kale hambalyo u diray jamhuuriyadda iyo shacabka China asagoo sheegay ama ka sheekeeyay xiriirkii dheeraa ee taariikhiga ahaa ee ka dhaxeeyay Soomaaliya laga soo bilaabo 60kii waxa uu sheegay in isdhexgalka labada bulsho uu ahaa mid aad u sareeya ka hor 1991 waxa uu mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari si gaar ah safiirka Shiinaha ugu codsaday in madaxweynaha dalkaasi China uu ka gaarsiiyo in Soomaaliya aysan ka faa'iideysan isla markaana aan waxba ku lahayn xiriirka China ay kala dhaxeeyay qaaradda Afrika iyo maalgelinta fara badan ay ku sameynayso waxaana uu ka codsaday in xiriirkaasi dib loo soo celiyo isla markaana mashaariicda Soomaaliya laga fulinayo ay ka doonayaan in dalka China ay arintaasi gacan ka geystaan. On behalf of the government of and the people of Somalia, I appeal to you, Mr. Ambassador, and through you to the government of the People's Republic of China, to revitalize our social, economic and stabilization through more robust friendly cooperation, and China to come back vigorously to assist our beloved Somalia to emerge from the decades of instability to build a new functional democratic state. Si kastaba xiriirka China iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay oo xakad ku yimid dagaalkii sokeeye dalka markuu ka dhacay 1991 oo safaaradda China iyo diblomaasiyiinteedii Soomaaliya joogay laga daadguriyay ayaa waxa dib loo soo celiyay safaaradda Shiinaha ee ka howlgasha halkan ee magaalada Muqdisho sanadkii 2014 waxayna China haatan ay ku leedahay safiir iyo diblomaasiyiin kale oo joogta ah oo Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka howlgala. Cali Cabdiraxmaan Aadan, SNTV, xarunta safaaradda Shiinaha ee garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho. magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay mideynta canshuuraha dalka kaas oo ay ka qayb galeen wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya. warbixintan waxaa Garowe inoogu soo diray Yuusuf Maxamed Maxmuud. Garowe waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii looga hadlayay dhaqaalaha dalka gaar ahaan mideynta canshuuraha guud ahaaneed waxaana goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaani wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada dalka iyadoona gabagabadii shirkan la wada saxeexay heshiis guud oo dhanka canshuuraha ah. waxaa ka hor inta aan la saxeexin heshiiskan hadallo kooban soo jeediyay wasiirada maaliyadda ee dawlad goboleedyada kana hadlay faa'iidada ay leedahay isku xirnaanta maamulada iyo dawladda dhexe ee dhanka dhaqaalaha. arrintaas oo aan uga jeeday dowladda federaalka Soomaaliya inay arrimaha difaaca iyo mushaharooyinka ciidamada ay kabto ama wax ka bixiso iyo miisaaniyadda dowladda federaalka iyo miisaaniyadda dowladda Puntland oo aan uga jeeday dowladda federaalka inay kabto sidaas laajigeed arrimahaas
kama hayno dowladda federaalka ee Soomaaliya. qodobka wuxuu oranayaa iyadoo la qadarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo xukuumadda federaalku waa inay dowlad goboleedyada kala tashataa wadaxaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga axadiyada ama arrimaha muhiimka ee la xiriira heshiisyada caalamiga runtii maamul goboleed waxay ahaayeen shaqadii dowladda dhexe waa in ilgaara lagu eego loo tixgeliyaa inay ayaga mas-uul ka yihiin ama ay matalayaan gobollada ay joogaan ku matalayaan dowladda dhexe aan loo arkin intii dowladda meel gaara iska taagan oo magacyo gaara laba gabagabadiina waxaa shirkaani soo xiray wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle si cadna u sheegay qodobo dhowr ah oo dhanka canshuuraha oo heshiis guud laga qaatay shirkii maaliyadda ee Garowe. dhowr arrimood baan hore la soo shaqeynay in maanta ay ku duubi ee masuul oo ay ka mid ah canshuuraha dalka iyo canshuuraha sigaarka iyo dadka doorkiisa canshuuraha laga qaado saddexda arrimood hore looga soo shaqeeyay oo guddigii farsamada aad u barnaamij madaxda kale ee shalay maantana ay aad ugu amaanan yihiin madaxda wasiirada iyo wasiirka state ayaa maanta dalka ku yimid. Higsiga dhow ee wasaaradda maaliyadda ayaa ah mideynta canshuuraha dalka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka kala duwan ee uu dalkeenu leeyahay. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe. weli wararkeena habeenimo ayaad la socotaan daawadayaal qodobo dhowr ayaa inoo harsanaya si haatan waxaa la gaaray xilliga lima dhaafaanka ah ee aadaanka salaada cisha ee xilliga magaalada Muqdisho. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. أدنك إيو دعاء كدن بيسيبة تلفزيون قرنك الصومالية أياد كلا سعوتين آتنا أن دب قلابنا قضبض إنو غهري ورركينا بينمو.
munaasabad lagu xusay maalinta caalamiga ee dalxiiska adduunka ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho iyadoo munaasabadaasina ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. ujeedada munaasabadan oo ahayd xuska maalinta caalamiga ee dalxiiska adduunka oo ku beegan 27 Sebtembar isla markaana dalkeena si toos ah xubin buuxda uga noqday hay'adda dalxiiska Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa 13 bishan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo munaasabadu ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha iyo ururada dalxiiska dalka iyo fanaaniinta Banaadir Baan agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala iyo Yaasir Maxamed Baafo la taliyaha dhanka dalxiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedadu ay leedahay munaasabadan. ku biiristaan ku biirnay waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay adduunka markii laga gaarayo arrimaha dalxiiska la xiriiro Soomaaliya inay cod ku leedahay tashiga ay wax ku leedahay mid ugu horeysa haddaysan Soomaaliya fadhinin go'aano qaar inaan la qaadan karin dalkeena runtii fursadaha ka jira waxay u baahan yihiin cid isku taagta sida maanta dad halkan joogo badan oo iyagoo laga yaabo inaan xil rasmi ah haynin oo dawladeed go'aansaday inay maaragtay ka qayb qaataan munaasabadan ma aha mid wasaaradda kaliya ay soo qaban qaadisay ma aha mid somta kaliya ay soo qaban qaadisay waana munaasabad tusaale fiican oo ah sida ay u wada shaqayn karaan dawladda iyo dadweynaha. wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka Cilmi Cumar Ciise ayaa bogaadiyay dadaalka dheer ee loo galay xubinnimada Soomaaliya hay'adda dalxiiska adduunka. waxay leedahay meelo badan iyo goobo badan oo loo dalxiisan karo gudoomiyuhu siduu hore u sheegay hadda insha Allah ka dhageyn doono إن شاء الله مكان وفرحت وين إن أشوي إيمان أن كهذا من التلحيس كصوماليا إن الصون ولا التلحيس إلا يوم وقت يوم عن كهذا لين بربر يو بلاين شيء لكن وحاول له فرحة وقت يرده إن وزارة خرجوا في وزير رئيسه إلى فوق الستة إن صوماليا كمية نقطة هيئة القانون اللي قابل السنة gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa tilmaamay in ka maamul ahaan ay sameyn doonaan qorshayaal lagu horumarinayo dalxiiska caasimadda. qorshaheena waxa ka mid ah inaan mustaqbalka u sameeyno adeegga loo yaqaan ferry services ama adeegga doonyaha isaga bulsho oo taamicneedu ay tahay inaan suurtagelin adeeg doonyo ku dhiirigelin ganacsatada iyo dalxiiska inay isaga gooshaan Muqdisho ilaa magaalo xeebeedyada taa waa qorshe insha Allah taala. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow ayaa sheegay muhiimadda ay u leedahay dalka dalxiisayaasha. Soomaaliya waa wadan meel istiraatiijiyad ku yaala oo geeska Afrika ah xeebta ugu dheer leh laba webi leh intaasoo maaragtay goobo dalxiisna leh wadan gudihiisa. markaan Soomaaliya ka hadlayna ma kama hadlayno Soomaaliya oo meelo kooban ah ka hadlayna Soomaaliya oo dhan waqooyiga iyo waqooyi bari meelo badan oo dalxiiska loo tagi karaa jira annaga nagu xiran tahay inaan caalamka tusno kuna soo xigno waxaan ka codsanaa marka joogta Soomaaliyeed 2 milyan iyagaa nagu filan dalkan inay dalxiis u yimaadaan meelaha ay u aadayaan inay iska daayaan wadankoodii oo ay ku nasiibsadaan noo yimaadaan. 13 bishan ayay ahayd markii Soomaaliya ay xubinnimo buuxda ay ka heshay hay'adda Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa dhanka dalxiiska waxay tan tusaale cad u tahay in Soomaaliya xilligan ay wadanka ka jirto xasilooni dhanka amniga ah astaamaha dalxiiska lagu gartan ayay qayb ka tahay waxayna dawladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ay wadaan dadaallo lagu ballaarinayo goobaha dalxiiska oo wadankeena lagu tiriyo wadamada ugu dalxiiska wanaagsan qaaraddan Afrika ay ka mid nahay. Cabdirashiid Nuur Ibrahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ku baaqay in siyaasadda arrimaha dibadda lagu ixtiraamo dowladda federaalka Soomaaliya. Mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inay muhiim tahay in wada tashi lagu dhameeyo fikradaha kala duwan ee ka dhashay ama la xiriira khilaafka wadamada khaliijka Carabta. inta koowaad waxaan ka jawaabaynaa baaqi
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ugu baaqay in la isugu yimaado gogol wada tashi gogol nabadeed iyo gogol walaaltinimo oo looga wada hadlo arrimaha maamul goboleedyada iyo arrimaha guud ahaan dalka Soomaaliya. Arrintaas oo soo dhaweynaynaa annagu haddaanay Hirshabeellana waa aqbalnay waxaan diyaar u nahay waqti alla waqtiga madaxweynuhu xafido oo cayino soo qayb galno si dadnimo leh annagu soo qayb galno. Arrinta madaxweynaha waxaa ku dhahneed Soomaalinimo dadka loo tiro iyo in la wada tashay fikradahaas oo dhammaan waa fikrada aan soo dhaweynayno. Arrinta labaad oo arrintaas la xiriirta oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye xaaladda hadda ka taagan dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay aad ayay u sahlan tahay in wax la dumiyo laakiin aad ayay u badan tahay in wax la dhiso. waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso waa la socotiin marxaladaha la soo maray waa la socotiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wada hadalka iyo walaaleynta sunna wal jamaaca ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaas khusayso in cagta loo dhigo la qaboojiyo xiisadda wada tashi la geliyo lagana hordhigo wax walba sidii maamulkaas loo badbaadi lahaa xukunkuna usii socon lahaa runtii sida aad hadda u kala qaadqaaday anagu xisaabta waa ku darinba waxaan runtii inaan halkaas soo istaago horta waxaa u sababa inaan ka jawaabno dareenka madaxweyne Axmed Madoobe oo mataqaanaa shalay soo saaray oo ah dareen dadnimo dareen walaaltinimo inaan muujinana muxuu ahay in loo baahan yahay in arrintan wada tashi iyo walaaltinimo lagu galo sida asuguba uusan uga hadlin arrimaha gudaha iyo arrimaha qaybsiga uga hadlay dadnimo iyo Soomaalinimo iyo walaaltinimo aniguna hadda maanta diyaar u yahay halkaan uma taagni inaan hoos u sii galo sida arrintaas wax looga qabanayo waxa kaliya oo aan yani muhiimadda aan saaraya in loo baahan yahay xiisadda in la dejiyo xaaladda in la qaboojiyo wada tashi lagu dayo cid alle ciddii arrintaas wax ka geli karta ha ahaato dowladda federaalka ha ahaato maamulada ha ahaato beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha ha ahaato shacabka Soomaaliyeed intaasay u tal in arrimaha yaal wax laga qabto laakiin hadda waxaa muhiima in wax walba laga hordhigo maamulku inuusan carqalad gelin oo aan gadaal loo noqon xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Galmudug ayagoo halkaasina kulamo kulole ee dhinacyada ama madaxda maamulkaasi Galmudug sida warbixintan Cadaado inooga soo diray Cabdi Xasan Roble Awowe wafdi ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Buqaari ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado ujeedada wafdigan ay u yimaadeen magaalada Cadaado ayaa ah dejinta xiisadda siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa madaxda sare ee maamulka Galmudug sidaas waxaa sheegay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Buqaari oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ujeedada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay'adaha dastuuriga ah ee Galmudug waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sareynta dastuurka uu siiyay yagleelidda habdhismeedka iyo dibadhiska dawladnimada Soomaaliyeed oo ah dawladda federaalka Soomaaliyeed taasoo ku salaysan hanaanka baahinta xukunka ee habka federaalka kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa mar alla markii aan la kulanno qaybaha kala gedisan hay'adaha dastuuriga ee Galmudug ayaan wixii warbixin aan dib ka sheegi doonaa haddii ay baydmo waa maasantii intaasi kadib ayaa wafdiga labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka socday waxa ay kulamo gooni la yeesheen madaxda sare ee maamulka Galmudug waxaana ay kala hadlayeen sidii loo dhameyn lahaa khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya madaxda Galmudug waxaana weli sii soconaya kulamada ay la yeelanayaan madaxda maamulka Galmudug Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Soomaalida Koonfur Galbeed ayaa waxa ay kormeer howleed ay ku tageen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo warbixintan inoo diyaariyay Maxamed Cali Cumar Juba
deegaanka bariire waxa uu 9 kiiloomitir dhanka galbeed ka jira deegaanka number 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka deegaanka bariire waa dad xoolo dhaqato iyo beeraley iskugu jira. waxaa maanta soo gaaray waqti uu hogaamiyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ay qayb ka yihiin wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. ujeedka ay u soo gaareen dadka deegaanka bariire ayaa ah sidii ay ugu kordhin lahaayeen xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka bariire mid caafimaad, ganacsi iyo amni. iyadoo dhawaan deegaanka laga saaray maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo horey u maamulayay halkan. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka bariire ayaa mas'uuliyiinta ku soo dhaweeyay deegaanka. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiirada ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin deegaanka bariire. gudoomiyaha degmada Awdigle oo ay hoos tagto deegaanka bariire Maxamed Awees Abukar ayaa sheegay in bariire ay muhiim u tahay isku socodka Shabeellaha Hoose. wasiirka xanaanada xoolaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdiraxiin Nuur iyo wasiirka macdanta iyo batroolka Cabdiraxmaan Cismaan Malaaq ayaa bulshada ku dhaqan deegaanka bariire waxa ay ka codsadeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan. waqtiga soo dhow saacadaha soo dhow waxaan ugu wajahan inaan u sii gudubno dhankii Awdhegle ilaa Muwaarag ilaa Tortoro. haddana ciidamadu waxay diyaar u yihiin ciidamada qalabka sida ee dawladda dhexe iyo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan diyaar u nahay dib u xireen dhab inaan wada galno. dawladda la sheegayn waa shacabka waa dhulka intaas oo dhan markay isku aruuraan waxa la yiraahdaa dawlad hadafkana waa horumar. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudan Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu deegaanka bariire ka hirgelinayo mashaariic horumarineed ayna furi doonaan wadooyinka ay go'doomiyeen maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. deegaankan mashaariic horumarin ayaa ka bilaaban doonta mardhow. waxaa laga furi doonaa 2 isbitaal oo MCH ah oo si bilaash ah dadka loogu daaweyn doono haddii Alle. annaga ayaa la imaanay dad saaxiibadeena aan ugu caawiyay dhaqaatiir ay imaan doonta si bilaash ah daawadiina iyo caafimaadkiina bilaash ay noqon doonaan. waxaan kaloo rabnaa inaan idin xaqiijino maritaanka wadadan dhinacan Afgooye aaday Mareere ilaa Sabiid mardhow ciidamo xoogga dalka Soomaaliyeed ah oo idin difaaci doona danta dalka iyo diintana difaaci doona nabadiidkana la dirari doona ayaa Ilaahay idinkiis la dejin doona meel ammaan ay noqon doontaa meeshaas. Maxamed Cali Cumar Juba telefishinka qaranka Soomaaliyeed deegaanka bariire gobolka Shabeellaha Hoose. mas'uuliin ka tirsan wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeer ku tagay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo si weyn ay u saameeyeen fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle oo mara deegaanadaasi. sida warbixintan Jowhar inooga soo diray Abukar Maxamed Bacadle. kadib markii maalmihii la soo dhaafay webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar oo ku teedsan webiga hareerihiisa lagana filan karo fatahaad hor leh in uu u geysto tuulooyin kale maadaama webigu si xad dhaaf ah u buuxo saacadda ka dambeysana levelka biyuhu sii kordhayaan ayaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda bay'ada iyo horumarinta reer miyiga Hirshabeelle horkacayo sii haya xilka wasiirka wasaaradda ku tageen dhowr tuulo oo ku yaala inta u dhaxaysa Mandheere iyo Jowhar kormeer ku gelayaan fatahaadaha webigu deegaanadaasi uu ka sameeyay. sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa soo kormeeray mashruuc wasaaraddu ay ku qodayso warabiyood lagu kaydin doono biyaha webiga deetana dib looga isticmaali doono. qaar ka mid dadka deegaanka ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiinta wasaaradda bay'ada. boqolkiiba kiligaan fuuji aan noo qoday hay'ad baa noo qoday alxamdulillah beeraley aan noo qoday qaabka loogu qoday waxa waaye beeraley inay tan yar tahay qaabkaas wax loogu qoday insha Allah waan lagu guuleystay. waxaa isna goobta ka hadlay kusimaha agaasimaha guud waaxda Hirshabeelle ee wasaaradda Maxamed Amiin Xaaji Caqiil wuxuuna faahfaahiyay kormeerkooda maanta waxa uu ku saabsanaa. waxaan soo marnay tuulada Nuukaay oo lagu sheegay in xogaa biyo ay ka fatahaadeen waa soo aragnay waxaana hadda dul taagannahay waqti hawshu
iyo aad iyo horumarinta reer miyiga mashruucaas oo ay garab nagu siisay hay'adda UNDP keliga Kafuji iyo keliga Bukraale waxaan rabnaa mashaariic kale hadduu alle idmo oo loogu talagalay inaan gaarsiino mashaariicdeena gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe intaba maadaama ay Hirshabelle ka tirsan tahay. ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay kusimaha wasiirka wasaaradda bay'ada horumarinta reer miyiga Cabdikariin Nuur Xasan Doobyare. kormeerkeena sida agaasimuhu sheegay waxaan soo kormeernay dhul webigu oo ka fatahay iyo mid hadda uu qatar ugu jiro inuu ka fataho oo dhibaato ku ah environment-ga ama deegaanka. waa war casri ah aad u weyn. hadda meeshan aan taaganahay waasto biyaha laga cabo ayaa laga samaynayaa waxaa iskala ariga midaasi waa midii lo'da tan ku sii xigtana waa geela halkan waxaa laga dhisay ahaan ilaa iyo maxaa la jiray 40 mitir cube qaada kaas waa qolkii loo dhigay maaragtay alaabta kaydka loo dhigay labadaas waa kuwa jirgaanada iyo dadka maaragtay ay ka cabayeen oo alsan jirgaanada looga dhaaminayay solar system qaab ayaa loo sameeyay biyaha marka ay warta galaan dhinacana waxa ka cabi doona xoolaha biyaha nadiifka ah ahaantaana la saaraya waxaana ka cabi doona shacabka. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarun goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar. halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishin qaranka Soomaaliya. haatan akhbaaraadka dibadda ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Thailand Inglag Shinawatra ayaa maxkamadda sare ee wadankaasi waxa ay ku xukuntay muddo 5 sano kadib markii maxkamaddu ay ku heshay in ay lunsatay hantida qaranka wadankaasi xilligii ay ra'iisul wasaaraha ka ahayd Inglag Shinawatra wadankaasi Thailand. ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Thailand Inglag Shinawatra ayaa maxkamaddu waxay ku heshay dambi ah in ay dayacday isla markaana ay lunsatay hantida wadankaasi isla markaana waxa lagu xukumay muddo 5 sano ayadoo wadanka ka maqan. maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay sheegtay in Miss Inglag Shinawatra lagu helay in ay lunsatay isla markaana ay dhacday hanti gaaraysa 8 bilyan oo dollarka Ameerikaanka oo dawladda wadankaasi ay lahayd. 2014 ayaa xukunka laga eriyay kadib markii ciidamada militariga wadankaasi ay afgambiyeen waxaana Miss Inglag Shinawatra ay eedeymaha loo soo jeeday ay ku tilmaantay kuwa aan waxba ka jirin waxayna sheegtay in ay si weyn ugu soo horjeedo waxaana markii xukunkan maanta uu ku dhacayay ay haatan ku sugan tahay Inglag Shinawatra wadanka istaga Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaarihii hore wadankaasi Thailand Inglag Shinawatra oo mar dalka wadankaasi ku nool si ay u jeclaayeen ayaa la sheegay in sumcadeedii ay hoos u dhacday. qaadi ka tirsan maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa Miss Inglag ku tilmaamay in ay si weyn ugu takrifashay hantida wadankaasi isla markaana ay dembigaasi ku heleen. arrimaha sida weyn loogu soo eedeeyay ayaa waxa la sheegay inay ka mid yihiin in ay qandaraasyo si qalad ay ku bixisay waxaana nin ka tirsan maxkamadda sare ee wadankaasi uu sheegay in waxyaabaha lagu eedeeyay ay og tahay dawladda isla markaana aan si sharci ah u samaynin qaar ka mid ah sharciyada ama kontraktiyada wadankaasi. waxaa la sheegay in ay si weyn xilligii ay maxkamadeedii socotay sidoo kale ay arrimo kale oo aad u muhiimsan lagu soo eedeeyay taas oo la sheegay in dhammaan arrimaha dhanka siyaasadda ay haatan la sheegay in ay si weyn saameyn ugu yeelan doonaan. Miss Inglag Shinawatra ayaa waxaa wadankaasi xubin ama ra'iisul wasaaraha wadankaasi loo doortay sanadkii 2011 bishii May waxaana muddo kadib la sheegay in ciidamada wadankaasi ay afgambiyeen markii 2014 January lagu soo eedeeyay in ay musuqmaasuq iyo wax isdamarin ay ku dhaqaaqday waxaana isla May ee sanadkaasi 2014 lagu qasbay in ay xukunka ka degto kadib markii maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga wadankaasi ay ku heshay dambi ah iyo si qaldan inay awoodda u isticmaashay taasi oo keentay in ciidamada militariga ay xukunka ka tuuraan. guud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen daawadayaal telefishin qaranka Soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo inta warka 9 mar kale aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum.